boqolkiiba boqol ma fahanteen waxaa waaye nin yahow ceebna maaha ninka raggu intuu qalad gala hadduu dhaho dadaa ceeb oo arka nima yahow caafiyo aqaana aan fahmaysin caafiyo asxaabta waa ku qaldanaa arrinkaas boqolkiiba boqol waxaa waaye shalay Somaliland iyo Puntland soo aflagaadeeyay oo dadkayga ah ayaga waan raaligelinaan ka bixiyay maantana xamar ay ku imaata mooho qaat raaligelinta ree xamar maxaa idin ku dhacay walaalka sharmaake walaal maanta horta maadada aan la yaabanahay waxay tahay dad baa waxaa la leeyahay maantadan la joogo 2023 maxaa la tiri baa waxaa la leeyahay qabyaalada barta dad noocaas ku hadlaya arkay qabyaalada barta hebelo ree hebelo qabyaalada mataqaaniin qabyaalada barta alisdhaha qabyaaladii xilligan ala ifinaya ani mar labaad mar saddexaad mar afraad idin leeyahay qabyaalad wax laho ma aqaan ani alxamdulillah Soomaaliya ka dhashay qaasatan reer Puntland ka dhashay waa ogahay qabyaalad laakiin ma aqaan dadka hadda inay bartaan rabo marka qabyaalada oo barbaranayo baliis hana dhibina anaga waa hadda barbaranoosin idinka anaga ma rabno inaan ka mid noqono iskuulkaasna ma soo galayno ma fahmaysiin casharo kala baranay ilaah meel kale noo qooyo dhinteena noo qooyan marka Soomaali Maxamed aniga guud ahaan ay idin raaligelin Muqdisho markii la dhaho waa Soomaali oo dhan ma beentay yaxyo neo maya Muqdisho waa Soomaali oo dhan Soomaha aad iyo aad way ka dhaxaysaa Soomaali oo dhan ay ka dhaxaysaa Soomaali oo dhan aan guud ahaan buu raaligelinayaa waan idin jeclahay mar labaad mar saddexaad wiilkiina oo qalad galay ee ku daadato hadeer live haday idinku ay hadeerna live idinka dhahayo joor iska dhiga igu qaata ma fahmaysiin si fiican marka eebo waxa waaye dadka inta la hadli karo waa la hadli aada u salaamaya haddana waxa noloshii hadal nin weyn waa sameysay qof muhiimad waxay tahay hadalka shalay hadda magaalada hadalka ku jiro oo Sharma Boya waxa sameeyay adiga dhaay Soomaa yes isla adigi hadii shalay hadalka xumaanta ku geysatay wanaga hadda ugu bedshid isla adiga ugu bedelo Soomaa aad okay ciyaal xamar macnaheeda maxay tahay marka الحمر waxay tahay waa in qofku wanaagaaga uu qaadan karo xumaantaadana uu qaadan karo ma fahanti mideeda kale hal mid aan ciyaal xamar kula kafta ma had ma fahmi ciyaal xamar halka ere ee leeyihiin oo meel walba ee nafta kaga qaadaan waxa waaye ciyaal xamar aan uqdad ma naqaano si fiican caadi iska dhig waa id ay uqdada ay qaadinay waxa caadi iska dhig waa id karaal gelin fahmaysiin uqdad iska daay ciyaal xamar atihiin uqdad ma taqaanin fahmaysiin baya adiliyo عاد واي هذه عقدة الإيقاع كور والله ما هي عقدة وحواي الحمر وقت دارس ودقنت وفهمي كرتا ومجال واتقان دت كان دقن كودن واتقان اللي قدر قفل يا شيك قدر لو شيك أنا متين فهمت صح مركا لكن دبعت تقول وحنا نقول ناس Soomaali هذا الكعادي على شيء سوكلت وأرمى مركا حالد إما دو قبيلة كسابسن برادر فهمت Soomaali waa marka kaliya isnici karaan